dhegaystayaal sidii aynu ku ballansanayn waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiidha halgankii gumaysidiidka ahaa ee inuu qaboobaa aan ku tilmaamay maansayahanada soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii u baday. barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhexaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii 1940-adii wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal dagaamo aanu markaas ka hor hawaysan jirin xilligii uu hantiyey. waa 22 gu ee madax la'aantu ay soomaalida ku dhacday. 22kaas gu haba madax la'aatee soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhigee rag inta gumaysigii qaayibi waayey ka gilgishay kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen. kasokow faarax nuur oo gabay cana ka tiriyey dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aanna ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore waxaa isaguna jiray gabyaa maansada soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay. waa gabyaagii la odhan jiray ismaaciil mire. haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban tixihii daaranaa ee uu dadka ku kicin jiray maan dhegaystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekayn si koobnaan badan taariikhdiisa ugu dulmaro. ismaaciil wuxuu ku dhashay laasadaar oo ku taal cidhifyada galbeed ee dooxada nugaaleed hilaadda sannadkii 1862 dabayaaqadii 1890 qarnigii 19aad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururkaa ku biiray kamana uu tegin tan iyo janaayo 1920 markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyey. wuxuu ammaanduulo ka ahaa ama ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xooggii ingiriisku uu daafaha dunida jabintooda uga soo urursaday. muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horreeyey. wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimo doonka ee daraawiisheed dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin. muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro, koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay, saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay, xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay, dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay isaguna uu markaa ku go'aan qaadan jiray. haddii aan soo koobo, ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray, sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina wuu isku hallayn jiray. maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu ismaaciil u gacan galay ciidan ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa. markii la xidhana darwiishnimada ka sokow waxaa dembi looga dhigay magaalada berbera oo waayadaa maamulkii ingiriiska xarun u ahayd inuu 14 maarso ee sannadkii 1914 weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftooda horayaal ah ammaanduulo. dhowr sana hadduu xabsigii ingiriiska ku silcaayey ayaa la soo daayey. dabadeedna wuxuu afka saaray nugaal iyo rugihii uu tolkii degi jiray, halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tul la mid ah weligii ku riyoon. wuxuu noqday nin reer miyi ah oo xoolo raacato ah, xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa. hase ahaatee inkastoo uu isku dayey inuu sidaa yeelo inta badanna uu isaga daydo, haddana ismaaciil nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon waayey. markaas buu bilaabay inuu tiriyo tixa gaagaaban oo guwaaba ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusi jiray siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan. marmar bay xigtadu waxay kula talin jirtay inay la gudboon tahay inuu afkiisa haysto, marba hadduu yahay nin la yaqaanoo maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo. taasina tale uu hawlaarsan yidhi ma ay noqon. maansadiisii xilliyadaa sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayey inuu abaabulo ururkii daraawiisheed la mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara, inkastuu waayey hamiga sidaasa cid ka hoos qaada, cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto. maansadii ismaaciil ee xilliyadaas gumaysidiidkuna uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey dabayaaqadii 1920 markii talyaaniga, ingiriiska iyo etoobiya ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen. waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku do'o aanu cag soo dhigi karin, xoolihiisana aan lagu arki karin. waxay ahayd xaajo ugub ah
oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray, qabaa'ilkii ceel iyo carshin iyo halkii daaq iyo biyalehba aan kala lahaan jirin. waxay ahayd arrin si gaara u danaqday Ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin. dabadeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hare aan tiro badnayn isagoo ku horaynaya meel aan weligeedba cidigeel ku foofsan, meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay hadhay afka la laacdo. waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga oggolaayeen, sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan. runtiina dhulka wuu yiqiin oo berrimadii hareeriga iyo daranta lahaa galab carrow ayay u jiraan, geelase ma geyn karo. wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego dhammaantii. markaas baa isaga oo dhayga dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la odhan jiray, caatana la dergan la. laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay. dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geygay, beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare, qoraxay iyo dhammaan geyiga ciideed, hawd iyo nugaal oo idil, sanaag iyo maakhir koos, godba ayl iyo badweynta ilig daldala. intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday. dabadeedna isaga oo laabta ka ooyayay ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynayo soomaalidii gumaysiga u jilicday isuna dhiibtay. wuxuu yidhi, markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsi kurulo doonbereley iyo degalkii reen weyna daroorrimada laantii lahayd laysu dacareeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagowye daaro iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray. waadigii damalka weynaaye daliigahanna kurus baa ahaa, duudkan feensamaye dararna waad lahayd, aad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kuugu furay, dan iyo caalwaaye muslimka daycad dhiibtaha ku baday, maanta duruglayse diqda qaayib awrtana la daaq deeq alla sugaystayaal. sidaan soo sheegay soomaalidii reer miyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay waa tii lagu cidhiiriyey markii soohdamaha loo kala yeelay. ha yeeshee waxaa taa uga darayd maamulladii gumaysigu markay dadkii ku soo rogeen waxa xaraashka la yidhaahdo oo ciqaab wadareed aynu sabankan ku tilmaanno. aan xeerkan silloon tusaaleeye, nin reer miyi ah ayaa nin kale dili jiray ama reere meel deggan geelooda ka soo qaadi jiray. markaas buu dhinaca dhibanaha ahay xafiisyada maamulka gumaysiga ka dacwoon jiray. sarkaalka degmada u taliya ayaa kolkaa isku dayi jiray in dembiilaha lasoo qabto, taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago ma lahayne. dabadeed inta ninkaas laga soo qabanayo lama sugi jirine jifada uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooroduugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan, iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin. saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadhiisan jiray beelo xeryuhu u buuxaan, kuwaasoo xaraashka kadib cayr fara madow wada noqon jiray. waxay eersadeenna waa in dembiiluhu iyaga ka dhashay oo keliya. kolkaas buu Ismaaciil geeli baa nacay. tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay minyaro ah ayuu yarad uga bixiyey. oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo. intuu lo iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftooma. maalintii dambe ayuu isaga oo sadcaara wuxuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriye xiirey. intii ay iswaraysanayeen ayuu diiriya hala irmaana oo dul daaqaya intuu haruubgaal ka soo buuxiye ku yidhi, adeer caanaha dhan aad sii socotide. caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu birihii dhinac isaga riixay. diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey, oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday? markaasuu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix guwaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyaddoodu loo weysiiyey. tixda oo dheer darteed ma wada marin karaynee tudacyadeedii halqabsiga lahaa waxaa ka mid ahaa, hasha oloshay jeel iyo haraad yaa miduun helaye ama harag maqaar baa hor yaal, hibasha waa dooge ama haadda waxay sheegaysaa huudan la ogayne, ama hogobyo laga qaaday bay u handanaysaaye wax lahaaba, hiijiyo ninkii hoosu tuur qaba. hinaasaha igalay reer tolkay hadiba maayaane dabagaal hidiir iyo arbaa har ku laacdamaye hargaamooyinkiibuu ku lumay hagabse qooqmoodii. rag ninkii xaraga hawkiyaba hoos mid bowride e hawraartuba u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado, waana taa heetis loo faqaayo hawadiisa dhigay. geel markii loo habsaday caynee diiriyow haruubka iga qaad
yaan hoqdow dhimanabi horweyn moodhar hawd iyo nugaal daba higoonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaya diiriyow haroobka iga qaadi aan hoqdow dhiman hawraarsan mooyee hadduu muran hagaafeeyey qabiilkii hindi ahaa hadduu hiil isgelin waaye habeenka harka haankaa qotoma halab karuurkeeda intaan haali guurida hayey yuu igu habboonaaye dirirteeda anigoon holayn ka harqa waa ceebe diiriyow haroobka iga qaad yaan hoqdow dhiman heensaha intaan daba sideen horar ku qaadaayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnaynee hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diiriyow haroobka iga qaad yaan hoqdow dhiman dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo cinwaanka aad nagala soo xidhiiri kartaana waa somali@voanews.com